بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلامي ضدك عاو ماشا سويمت فرحت وين باندري مايا ضد وضع أقانو إذا عمرتي حضرتها وحان معرفتي وبمهد العناية قدوميها قدومي مهد qorqor arrintan asaga iyo tiimkiisa tiimkaga waa ka mid ah marka inaan maaragtay tiimkaas maanta fikrad cusub oo qiimo leh oo cilmi ku dhisan inay maanta la yimaadeen aad baan uga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa safiirka noo jooga Washington safiirkaas oo ah sida uu hambal ugu yahay dadkiisa qurba joogta ah oo uu u yahay safiir u yahay oo danahooda iyo waxooda uu wakiil uga yahay oo aan iska weynaysiinin oo saacadii aan u baahnay saacadaan rabnaba noo imaanaya waa u mahad celinaya. Thank you safiir. mahad celin kadib meeshaan waxaan ku joognaa qurba joogta ama magac la yiraahdo diaspora. Diaspora waxaa keenay dagaalkii dadkii soo baxsaday oo la soo baxay caruurtoodii waayeelkoodii dumarkoodii dhaawacoodii oo kulligeed inta maanta meesha fadhisaa aan ka warmana dadkaas markaa imaanay dibadaha oo aasaas heeryada loo dhigay waxaa laga bilaabay dadkii laga soo tegay in la caawino loo shaqeeyo biilkooda la diro dhalinyaradii wax laga koriyo wax la baro ilaa iyo haddeerna way wadaan kheyr allaha siiyo waa dadkii horumarkiisii iyo noloshii Soomaaliya aad ugu istaagay oo ka qayb galay markay halkaas marayso oo diaspora ama qurba joogta arrimihii Soomaaliya dadka joogay ay maaragtay garab siinaayeen ay ku dadaalayeen ay wax ka korinayeen maanta waxay taagan yihiin heer ay u soo jeestaan miiska wax laga qaybiyo miiska xukunka ka socdo xaqa laga qaato miiska inay soo fariistaan ay rabaan horay dad baa noo jiray marka miiskaas daraadiis Centerka for Strategic Policy and Development waxaan leeyahay waa wax loo baahnaa waa bislaashaan ku gaarnay marka hore waxaan ka fikiraynaa caruurtii iyo dadkii iyo wixii baahnaa iyo dadkii laga soo tegay hadda bislaasho waxaan ku gaarnay haddaynaan siyaasadda ka qaybgelin oo miiska wax lagu kala qaybinayo aynaan dhex fadhinin waxa aan tarayno iyo waxaan qabanayno waa qabyo wax badan baa naga maqan marka centerka caawa waana u hambalyeynaa waana maaragtay waana u hambalyeynaa waana taageeraa dadka iskugu yimid meeshaana waxaan leenahay centerka center dad kala xuquuqaaya maaha waa center Soomaali oo dhan ku xiran tahay danahooda ka shaqeynayso dadaalayso saas daraadeed centerka 100% waxaan leenahay waan taageeraynaa waxaan mahad gaara oo caawa aan la qashuucay aan u mahad celinayaa wasiirkeena wasiirka diaspora وسير كان أحمد معلم فقه
sida uu noo taageerayo, sida uu shacbiyadiisii maanta asagaa madax noo ah. Haddii aan nahay diaspora, asagaa madax noo ah. marka sida uu u taageerayo, sida uu ula socdo, sidoo hadduu ka qaybgeli waayey uu ka fekeray inuu codkiisa iyo wejigiisana siiyo oo nagu taageero, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, waana mahadsan yahay, hana loo sabqiyaan leeyahay. wasiirkeena waa istaagnaa, waa la ag taagan yahay marka